kulanti habboon daawadayaal ku soo dhawaada falanqaynta wararka xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo sidoo kale dhacdooyinka xiisaha badan ee ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. halkani waa Shacabka TV. qodobada aan eegi doono waxa ugu waaweyn dood xoogan oo ka taagan magaalada Muqdisho oo ku saabsan qaadka laga keenay dalka Ethiopia, iyadoo markaasi ay suuragal tahay in dowladda federaalka ee Soomaaliya go'aan ka qaadato qaadkaasi. arrimahani waxa ugu wacan warka ayaan ku eegi doonaa. mase habboon tahay sidii qaadkii Kenya loo joojiyay in isaguna loo mamnuuco qaadka laga soo daabulo dalka Ethiopia. wararka kale aan idin soo gudbin doono waxa ugu waaweyn ciidamo horle oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo mar kale lagu daabulayo deegaanada Hirshabelle si gaar ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo mar kale ay ka digi doonaan diyaarado sida ciidan Soomaaliyeed. warka ayaad ku daawan doontaan. waxaan kaloo eegi doonaa falanqeyn aan ku dul istaagayno haddii uu Maxamed Xuseen Roble horay uu u sheegay inuu markaa dalbanayo ciidan AMISOM oo hor leh, waxaa ka dambeysay ciidanka Soomaaliyeedna inuu yiraahdo waa in laga soo saaraa qayb ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ay ugu dambeysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. fikirka Roble uu aaminsan yahay ee ah in ciidanka Soomaaliyeed ama ciidamada shisheeye mar kale la soo kordhiyo, kuwa Soomaaliyeedna laga ilaaliyo ee la tababaray dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. waa warbixin aan ku eegi doono warkeena. qodobada kale waxaa ugu xiisaha badan guuldaro weyn oo garabka siyaasiyiinta mucaaradku ay ka soo gaartay xubnaha kuraasta golaha shacabka ee ilaa haatan la doortay, liiska la soo bandhigay iyo mucaaradka Soomaaliya oo tirada ugu yar markaasi la saadaalinayo in ay ku leeyihiin xildhibaanada cusub ayaan warka ku eegi doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa. sidoo kale waxaan dul istaagi doonaa go'aankii kooxda Daacish ay markaasi ku xanibtay qayb ka mid ah suuqa weyn ee Bakaaraha. maxaa iska bedelay suuqa oo dib u furmay, hase ahaatee weli ganacsatooda ay walaac muujinayaan ayaan eegi doonaa. meel kastoo dunida ka joogtaan kulanti habboon ayaanu dilenahay. halkani waa shabakada wararka Shacabka TV oo idin soo gudbinaysa wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. daawada haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay Shacabka TV, gacmo furan ku soo dhawow si aad uga qayb qaadato dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed. doodiyadu waxay ku saabsan tahay oo ra'yigeena ku soo cabiri kartaan iyadoon aan falanqeyn guud ku eegi doono. Maxamed Xuseen Roble horay wuxuu u sheegay in markaasi uu ka soo horjeedo ciidanka Soomaaliyeed inay markaa madaxtooyada ammaankeeda ilaaliyaan, waqtigaas oo sidoo kale uu dalbaday in ciidamo gaar oo AMISOM ah isagu la siiyo. haddaba taa iyadoo la xasuusto waxaa ka dambeysay go'aankii Roble ahaa ciidamada Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Hiiraan ha laga soo saaro gaar ahaan magaalada Beledweyne. bal diidmada ciidanka Soomaaliyeed uu diidayo iyo dalbashadiisa ciidamada shisheeye waa qodobkayga ee dooda. fikirku waa aaminsan yahay ninkani. channelka subscribe aad hado, muuqaalka like noo saaro si faafiya wararka ee gaarsiiya malaayiinka kale ee Soomaaliyeed ee doonaya dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan. waa inoo sidaas imika aynu gudagalno wararkaasi oo faahfaahsan. waxaanu ku bilaabeynaa warkeena. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo horle la filaya inay ku daabasho magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. saraakiil sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa inoo sheegay in cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada militariga oo isugu jira gorgor iyo qaybo kale ciidanka militariga ah ayaa ka digi doona magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaa sidoo kale la geyn doona halkaasi cutubyo kale oo ka mid ah ciidanka Haramcad ee booliiska Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran. arrintani ayaa ka dambeysay iyadoo hogaamiye ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed shirkiisii jiray dhawaan uu ku xusay in ay doonayaan ciidamo kale dheeraad ah oo militariga iyo qaybaha kale ciidamada qalabka sida ka mid ah in lagu soo daabulo magaaladaasi, maadaama buu sheegay in Al-Shabaab ay dhibaato baaxad leh ku hayaan ammaanka deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan ugu horeyso. waxa uu sidoo kale sheegay hogaamiye ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed in ay cambaareynayaan kana soo horjeedaan cid waliba oo ka soo horjeeda in la sifeeyo ururka Shabaab lana xaqiijiyo ammaanka gobolka Hiiraan. haddaba sarkaal sare oo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa u sheegay Shacabka TV in tiradii lagu talagalay inay ka howlgalaan gobolka Hiiraan ciidamada xoogga dalka la geenayo halkaasi, isla markaana uu yahay amarka mid dowladeed oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. waxaa dhicisoobay oo meesha isaga baxay amarkii kooxda Roble ee isbahaysiga dhawaantan sameeyay, isla markaana isku dayay in ciidamada ka hor yimaadaan lagana soo celiyo gobolka Hiiraan. magaalada Muqdisho waxaa ku sugan Generaal Xuud oo isagu markaa la saaxiibay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo waan qaatay.
dhinacyada isdiidana ee siyaasiyiinta ee ku sugan gobolka hiiraan ama halkaa ka soo jeeda ayaa ima ka heshiiyey kuwaasi oo markaa qaatay taladii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee ahayd in la turo bulshada islamarkaana laga shaqeeyo danta bulshada reer hiiraan wixii tabasho ahna miiskooda xaajoodka lagu dhameeyo. halkaasi aad duli nagala socotaan daawadayaal waa shacabka t v meel kastoo dunida ka joogtaan kulanti habboon ayaanu dulinahay oo kasoo aragtay dhiibta qodobada wararkeena. magaalada muqdisho baryahan waxaa ka taagan dood culus oo ku saabsan qaadka laga keeno dalka Itoobiya. ganacsatada qaadleyda ayaa muran xoogan uu soo kala dhexgalay gaar ahaan shirkadaha markaasi qaadka la soo dega. arrintani waxa ay salka ku haysaa iyadoo qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee qaadka ay samaysteen isbahaysi gaar ah iyagoona markaasi maalmaha qaadka la keeno ay guruub u kala baxeen jaadleyda qaadka kala timaada dhanka dalka Itoobiya. warar uu helaya shacabka t v ayaa tilmaamaya shirkadaha qaarkood in ay wax ku leeyihiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta xalalka haya. ragga farmuuqa soo galay waxaa ka mid ah maxamed xuseen rooble, wasiirkiisa amniga, wasiirkiisa gaashaandhigga uu ka dhigtay iyo shakhsiyaad kale. waxaa kaloo qayb ka ah kooxda siyaasiyiinta hotelka Jazeera oo qaarkood shirka kula ah shirkadahaasi qaadka kala soo degaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. toddobaadkan gudihiisa fal ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ayaa ahaa shirkad keentay diyaarad qaad keentay oo markaasi soo caga dhigtay garoonka diyaaradaha in loo diiday inay dhigto qaadka ama laga dejiyo kadib markay isqabsadeen kooxahaasi shirkaha ku ah qaadka ka yimaada Itoobiya ayaa lagu soo daabulaya gudaha dalka Soomaaliya muddo ku dhow 2 sano tan iyo markii ay dowladda federaalka Soomaaliya sanadii 2020 joojisay qaadkii dhanka Kenya. dhinaca kale haddii aynu eegno jab xoogan ayaa qoliyaha siyaasiyiinta ee mucaaradka Soomaaliya ka soo gaaray doorashada xubnaha kuraasta golaha shacabka ee ilaa iyo haatan la doortay. kuraasta la doortay ee xubnaha golaha shacabka oo 80 ku dhow ayaa tirada ugu yar waxa markaas ku yeeshay qoliyaha siyaasiyiinta mucaaradka qiyaastii 62 kursi oo inta ugu badan ay ka yimaadeen koonfur galbeed, gobolada waqooyi iyo sidoo kale dhanka deegaanada galmudug ayaa waxaa la xijiraya dhanka villa Soomaaliya si gaar ah xafiiska madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. taasi waxay ka dhigan tahay in wali uu hoggaanka hayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo doorashooyinka xubnaha kuraasta golaha shacabka ee ilaa haatan la doortay. sidaas oo kale maalmaha soo aadan ayaa la filayaa doorashooyinka ka kala dhici doona deegaanada gobolada dalka ee kuraasta golaha shacabka inuu saami fara badan ku yeesho madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo. warkii aad kala socoteen daawadayaal shacabka t v waqti xaadirkani waa naga intaa. waad ku mahadsantihiin daawashada wararkeena gobolba iyo goor kasta ku xirnada shacabka t v oo idiin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey xaaladda Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. waa inaa qaybaha kale ee wararka daawadayaal waxaanu dilanahay sidaasi amaan allah nabadgelyo. xanuun ayaa asiibay xagga rabbiga yimi. xanuunkaasi wuxuu yahay muddo hadeerto ku dhim taqriiban ilaa 12 sano ilaa 9 sano ku dhow. xanuunkaasi marka hore dhikar baan lahaa, markii dambena faarig baa igu dhacay, neerfaha oo dul maray. iskaankii la saaray waxay yiraahdeen dadkii dhakhaatiirtu waxay yiraahdeen labada kaliyood bura dhamaysa bura baaba ka dhigto sida sambaska oo kale dalkana waxa laga qaban karo waa bedel. waxaan ka codsanayaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto inay waxa weeye soo caawiyaan oo Ilaahay dartiisa soo caawiyaan.